بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. subax wanaagsan waxaa goordhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu furay shir wada tashi ah oo sidaan hore ugu sheegnay ay ka soo qayb galayaan madaxdii hore ee talada dalkan u soo haysay iyo siyaasiyiin. shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dawladda federaalka ee Soomaaliya. waa markii ugu horeysay ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horeeyay noocaan ah ee Soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dawladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wada tashi la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir amaba ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dawlad dhiska iyo ka samata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray. ha noqoto xagga dawlad dhiska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaariijta, ha noqoto dib u qaabeynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal. shirkani waxaa ka soo qayb galay oo sidaan idin sheegay uu shir gudoominaya madaxweynaha qaar ka mid ah madaxdii hore dalka madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarayaal hore, gudoomiyaal hore baarlamaan ah iyo siyaasiyiin ayaa wada fadhiya. waxaan filaynaa in wada tashiyada ay halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wada tashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aamada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo waddankani hore loogu marinayo loo maro. aad iyo aad u mahadsantihiin wixii su'aal dabcan horeyna saxaafadda waa la wadaagay madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka. intii ogolaatay way timid inta kalena way cudur daateen iyagoo markaas sabab gaar ah oo markaas iyaga u gaar ah ay u baaqdeen laakiin ma jirto wax diidma ah oo ka soo yeeray dhammaanba intii markaas loo diray casuumadaha. dabcan marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda ee dalka waxaa ku jira doorashooyin, waxaa ku jira amni, dhammaan waxaan filayaa in qodobadaasi muhiimka ee masiiriga ee waddankani u baahan yahay looga hadli doono shirkaasi maadaama waddankan shacabkiisu ay leeyihiin talo amaba ay xaq u leeyihiin inay talo ku yeeshaan go'aamada. waxaa qasab ah in dhammaanba wixii masiiri ah oo ummadda dhan ka wada dhexaysa laga wada tashto. doorashooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha ummadda ka wada dhexeeya, amniga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummadda ka wada dhexeeya. marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin wada tashi. qayb walba oo bulshadaana dawladda diyaar bay u tahay inay la fariisato ayna ka dhagaysato aaraadooda. طبعا waxaan filayaa inaan ka jawaabo su'aashaas oo aan ka hadlay oo dadka oo casuumada loo diray qaarkood ay arrimo ayaga u gaar amaba shaqooyin gaar ay markaas qabanayaan darteed u baaqdeen. su'aashaasna hore uga jawaabsana filayaa maasanta. waxaa loo danaynayaa waa masiirka ummadda Soomaaliyeed. masiirka ummadda Soomaaliyeed qof walba oo Soomaaliya waxa uu ku leeyahay xuquuq in uu fikir ama aaraa ka dhiibto ku soo aadin ama waqti gaar ah ma jirin. waqtigan ayaa munaasib loo arkay oo loo diray casuumadihii maadaama waqtigan ay diyaar yihiin waxaa la go'aansaday inuu shirkaani noqdo shirkii ugu horeeyay yeesha. mana noqon doono shirkii ugu horeeyay waxuu noqon doona waxaa jiri doona dhowr shir oo noocan oo kale ah oo qaybo kala duwan oo bulshada ay dawladdu ka talagelin doonto arrimaha masiiriga ee la rabo in waddankan lagu horumariyo.